wareegta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa lagu magacaabay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana loo magacaabay Saki Cabdi Xaraare iyadoona wareegtada uu madaxweyne Cosoble uu soo saaray uu akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Mustafa Xuseen Cabdulle maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 20ka bisha 6aad 2017 wareegto madaxweyne ujeedo magacaabida wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa 5aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana garwaaqsaday laga maarmaynimada in la tayeeyo wasaaradaha qaar maanta oo ay taariikhdu tahay 20ka Juun 2017 waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Saki Cabdi Xaraare wareegtadan waxay dhaqan galaysaa marka madaxweynuhu uu saxiixo uuna saxiixay wareegtadani ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweyne Cosoble oo wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamuud Cabdulle uu xilka hore uga qaaday Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawhar.